soo dhawaada muuqaal cusub. Waxaynu ku eegaynaa afarta mas'uul ee Soomaaliga ah ee xilalka ugu sarreeya ka haya hay'adaha amniga dalka Kenya. Kaalinta ugu horreysa waxaa ku jira Aadan Barre Ducaale, waa wasiirka gaashaandhigga ee xilligan ee dalka Kenya. Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu ka soo jeedaa Soomaalida Kenya, waxaa loo magacaabay wasiirka difaaca Kenya. Waxaana noqday Soomaaliga kaliya ee ka dhex muuqda 22 wasiir ee ka kooban yihiin golaha wasiirada Kenya ee la magacaabay goor sii horreysay. Aadan Barre Ducaale waxa uu saaxiib dhow loo yahay madaxweynaha Kenya William Ruto. Waxa ay isla soo mareen labadan mas'uul marxalado kala duwan oo dhinaca siyaasadda ah. Maxamed Yuusuf Xaaji ayaa ahaa qofkii ugu dambeeyay ee Soomaali ah ee qabta xilka ugu awoodda badan xilligii ay jirtay dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Mwai Kibaki. Waxa uu Xaaji wasaaradda maamulayay intii u dhaxaysay 8 bishii Janaayo sanadkii 2008 ilaa laga soo gaaray 26 bishii Abriil sanadkii 2013. Wasaaradda gaashaandhigga Kenya waxa ay maamushaa militariga ama ciidanka difaaca qaranka, waxaana mas'uulka ugu sarreeya ka madaxweynaha. William Ruto oo hadda ah madaxweynaha Kenya ayaa sidoo kale waxa uu hayaa xilka taliyaha guud ee ciidanka difaaca Kenya. Waa mid ka mid ah wasaaradaha ugu awoodda badan leh golaha wasiirada Kenya, waxayna ku jirtaa wasaaradaha loo qoondeeyay dhaqaalaha ugu badan ee miisaaniyadda sanadlaha ah ee qaranka Kenya. Aadan Barre Ducaale waxa uu dhashay 1969, waxa uuna dugsiga hoose dhexe iyo saraba uu kaga baxay magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Sanadkii 1992 ayuu heerka koowaad ee jaamacadda waxa uu uga baxay Moi, isagoo oo bartay kulliyadda waxbarashada, halka sanadkii 2011 uu heerka labaad ee jaamacadda ka baxay kulliyadda beeraha iyo tiknoolajiyadda ee jaamacadda Jomo Kenyatta. Kaalinta labaad waxaa ku jira Nuur Gabo oo ah kusimaha taliyaha guud ee ciidanka booliiska Kenya. Golaha qaranka ee adeegga booliiska Kenya ayaa bayaan ay soo saareen 7 bishan aynu ku jirno ee Oktoobar sanadkan 2022 waxa ay ku shaaciyeen in Nuur Gabo loo magacaabay kusimaha taliyaha guud ee booliiska Kenya. Waxa bayaankaasi lagu sheegay in xilkaasi uu soo bilaabanayo 26 bishii Agoosto uuna sii hayn doono ilaa xilkaasi loo dhiibayo taliyaha cusub. Madaxweyne William Ruto ayaa dhawaan waxa uu magacaabay Japhet Koome si uu u noqdo taliyaha booliiska, waxaase la horgeyn doonaa golaha adeegga qaranka ee booliiska oo go'aanka kama dambaysta ah ka gaari doona. Markii lagu dhawaaqay natiijadii doorashadii Kenya ka dhacday bishii Agoosto, Nuur Gabo waxaa lagu tilmaamay inuu yahay shakhsi kaalin mugla ka qaatay xaaladda dejinta kadib markii qalalaase ay hareeyeen goobaha looga dhawaaqayay natiijada doorashada ee uu ku guuleystay William Ruto madaxweynaha Kenya ee hadda. Nuur Gabo waxa uu xilal ka soo qabtay booliiska Kenya, wuxuuna ku biiray sanadkii 1998. Kahor inta uusan noqon taliye ku-xigeenka guud ee ciidanka booliiska, waxa uu ka tirsanaa taliska maamulka kolleejka booliiska. Waxa uu haystaa shahaadada labaad ee jaamacadda, waxaana ku takhasusay amniga, maamulka iyo ka hortagga dambiyada. Soomaaliga saddexaad waa Nuuridiin Maxamed Yuusuf Xaaji, waa dacwad oogaha guud ee dalka Kenya. Nuuridiin Xaaji ayaa xilka agaasimaha guud ee waaxda dacwad oogista Kenya waxa uu qabtay bishii Abriil sanadkii 2018. Waxa dhalay Allah u naxariistay siyaasiga rogcadaaga ahaa ee Maxamed Yuusuf Xaaji oo isna soo noqday wasiirkii difaaca ee Kenya. Nuuridiin ayaa horey waxa uu sheegay inuu la kulmay caqabado waaweyn oo ku horgudbanaa awoodiisa oo ah kuwa banaanka ah iyo kuwa gudaha. Muwaadinka afraad waa Aamin Ibraahim Maxamed, taliyaha hay'adda dambi baarista ee dalka Kenya. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa Aamin Ibraahim Maxamed waxa uu magacaabay agaasimaha waaxda dambi baarista ee Kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo DCI. Aamin ayaa hadda waxa uu bedeli doonaa agaasimihii hore ee waaxda baarista dambiyada ee Kenya, George Kenati, oo xilkaasi iska casilay sida lagu shaaciyay bogga Facebook ee hay'adda. Aamin ayaa waxa ku soo jeedaa magaalada Wajir ee Waqooyi Bari Kenya. Waxa uu in muddo aan ku jiray shaqada dambi baarista. Magacaabistiisu waxa ay timid kadib markii turxaan bixin lagu sameeyay 10 musharax oo u tartamayay jagadaasi, waxaana musharaxiintaasi wareysiga ka qaaday guddiga adeegga booliiska ee Kenya. Kahor inta aan loo magacaabin xilkan, Aamin waxa uu ahaa agaasimaha waaxda arrimaha gudaha ee qaabilsan inay baaritaano ku sameeyaan cabashooyinka ka dhanka ah booliiska. Sanadkii 2014 waxa uu ahaa isku duwaha xarunta DCI-da ee gobolka Bartamaha. Waxa kale oo hormuud ka ahaa howlgalladii xarunta dhexe ee DCI intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2015. Jagadaasi ugu dambeysay ee DCI waxay ahayd isku duwaha gobolka Waqooyi Bari intii u dhaxaysay 2015 ilaa 2019.